ay noqoto muddo kororsi mudane madaxweyne adigan toos kula hadlaya waxaan ku leeyahay mudane madaxweyne maanta ma ku habboon tahay in adigoo og dalka heerku marayo inaad tiraahdo muddo kororsi baan ayaa sameynaya 4 sano wixii aad qaban weyday 2 sano lagu kordhiyo maanta ma ku sameynaysaa waxay la tahay yaan lagu khaldin waxaan u maleynayaa dad la taliyaalo fiican oo kula taliya ma haysatid annagu waan tabaaleysnay annagoo dhiban oo dhibaato ku jirna ayaad noo timid dhibtii inaad naga saartaa baan rabnay nagamaad saarin waxay noqotay ka daro dugidhan qaasim waxa laga hayaa hawaankii maxay tahay reer waqooyiga ayaa waxa laga hayaa 1960kii halkan hore loo durkiyay darajo eegayay baraadkan darab dhigan dib ugu soo laabtay marka halkii bay maraysaa madaxweyne waxa laga baahan yahay anagu muddo kororsi ma baahnin wax qabad baan u baahnay haddaanu nahay shacabka Soomaaliyeed haddaanu nahay dhalinyarta Soomaaliyeed wax qabadkii 4 sano waa dhamaysatay haddii aad waxba ku qaban weyday waxa weeye 2 sano oo muddo kordhino ma hayno kumana ogolin madaxweyne waxa weeye waari meeshiga warakaada looma taalo hawshaas Soomaaliya looma taalo wax la kordhiyo baarlamaanka xilligiisa waa dhamaaday madaxweynaha xilligiisa waa dhamaaday iyagu iskama laha Soomaaliya wax wada leh waxaan Soomaaliya aanay u dhamayn oo aanay heshiis ku ahayn lama dhis karo lama kordhin karo 4 sano xilka hayeen 4 sanana meeshii la doonayay ma aan gaarsiin xamar bay dhaaf leeyihiin xitaa xamar amnigeedu baan xasiloonayn kursi jacayl uu baa ka dhalanaya Soomaalinimo iyo horumar iyo wax soo saar ka dhalan maayaan marka waxaan leeyahay ha ku degdegina haddaad kordhisaana idinka ayaa kordhistay oo Soomaaliya waxba uma idin kordhin waxaan isleeyahay haddii muddo kororsi oo dhaco waxaan isleeyahay wuxuu ku dhici karaa qaab sharci darro ah hadduu ku dhacana waxaan isleeyahay wuxuu keeni kartaa qalqal siyaasadeed xagga amniga xagga bulshada iyo magaalada Muqdisho oo noqoto mid amnigeeda iyo maaragtay aan la isku halay karin inay taasi sababto waxa dhici karto dagaal sokeeye sababtoo waxaan ognahay extensionka haddii uu dhaco sidii dhici jirtaba ama horay markii adiga ilaa 21 sano ka hor wadankan